أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك دمانتين واد السلامي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi tiiraan ooga diraya ehladii iyo qoyskii dhammaan intuu ka baxay ajakis wallahi ajakis aada ooga naxay indheyga waxaan waa oohin aada ooga naxay markaan arkay ajakis inuu geeriyooday ilaahay ha u naxariistaan lee qabrigana allah u waasiciya dadkii wallahi maxay dhihi jiraan ajakis baa dhintay ajakisaa dhintay tii runteed hadday u imaaday ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistaan lee qabrigana allah u waasiciyaan leehay ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo dhammaan walaaladii iyo ehladii dhan uu ka baxana ilaahay maxaan ku dhaha qalbiga ha u qaboojiyo ayaga biska muu bixin anaga dhan uu naga baxay ajakis wuxuu ahaa aabahanaga wuxuu ahaa maxaan ku dhahaa qofka kaliya naga qoslisiiyuu ahaa qofka kaliya ku xirneen qofka kaliya daawanaynu ahaa ilaahay rabbi oo ilaahay subxaanahu watacaala oo naga jeclaaday allah maxaan ku dhahaaye qabrigiisa allah u waasiciyaan lee kitaabkiisa gacanta midig allah ka siiya nin wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa dadkiisa jecel nin wuxuu ahaa maxaan ku dhahaaye dadkiisa inuu ka qoslisiiya wax farxad la u sameeyo ayaga dartooda wax walba u sameynayo ahaa wallaahi aadaan ooga naxay markaan arkay maanta aadaan ooga naxay ilaahay qabriga u waasiciyaan le ilaahay subxaanahu watacaala qabriga allah u waasiciyaan le meeshaas waa loo wada socdaa waa un la kala horeeyaa ma ogi walaalayaalo waa la kala horeeyaa nin walba waxaa waay tiisa horta ma dhaafa ay daraad waxay dhahayeen wuu xanuunsan yahay koombuu ku jira koombada wuxuu u galan waxay keliyihiisa maxaan ku dhahay fashion ku dhaceenaa la dhahay sidaa darteed keliyahaasee loo dhaqi karaa baa la dhahay keliya waxaa loo dhaqi karaa baa la dhahay in asiga la suuxiyo oo koomba camal uu galay ahayd marka dhibku u geeriyooday wax walba waxay meesha ka imaadeen kaliyaha maxaan ku dhahay fashion weyn ku dhaceena la dhahay ilaahay subxaanahu watacaala horta nin walba markuu dhimanayo wax la unbuu sababsadaa heblaay uu jiraday heblaay xanuun buu u dhintay waxaas wax la dhahay ma jirto taada hadday imaado ma dhaafaysidaan ku dhahay heblaay xanuunkaas u dhintay heblaay maxaan ku dhahay asagoo gaari waduu gaari la gadoomay heblow saas waay waxaas wax la dhaha ma jiraan sabab ayaa looga dhigayaa ma ogi laakiin qofkan waa qoftiisa intay gashay tiisa dhamaatay oo inuu geeriyoodo uu maanta uu dhinto oo xagga ilaahay u hoyda oo waqtigiisa waaye marka walaalayaalow waxaan idin leeyahay faataxada ha loo maro aabahanagu ahaa qofaan jecelnu ahaa uu naga geeriyooda ilaah naga jeclaaday ilaahay ayaa naga jeclaaday wallaahi aaskiisa markaan arkay oo hadda la soo geliyo arkay ajakis inuu anoo tiktok iska fiirna ajakis inuu dhintay aan arkay aadan ooga naxay wallaahi billaahi tallaahi wallaahi aadan ooga naxay sidaa darteeda hadda ugu taxsiyayna inaan u taxsiyay aan usoo geliyay wallaahi mobilkayga xataa gacantan ku haysta anaa gacanta ku haysta gacantan ku duubi haaya xataa bahasha la saaraya xataa ma saaranin because kama gaarin ma bara raadin ma bahash xataa mobilka la saaray naxdin darteed wallahi ana mobilka xataa gacanta ku hayo gacanta ku duubay baan is arkay ilaahay u naxariistaan le ajakis ilaahay maxaan ku dhahay qabriga allah u waasiciya marti la jecel yahay oo si sharaf lagu soo dhaweeyo oo kaala iska arag loo soo dhaweeyo allah ka dhigaan le insha Allah taala meeshaas waa loo wada socdaa waana meel laga wada sugayso waa un maxaan ku dhahay waa un la kala horeeyaa waqti un baa la kala horeeyaa ma ogi insha Allah taala wax kale hadda aan sheegi karna maxaan ku dhahay oon dhihi karna ma jirto duca le waay ducadana waa loo wada baahan qof kasto duca ayuu u baahan insha Allah taala waxa idin leeyahay walaalahayga qaaliga usoo duceeyo ajagsni wanaagsan buu ahaa waa nin maanta duca nooga baahan waa nin maanta maxaan ku dhahay duca nooga baahan idin leeyahay usoo duceeyo nin wanaagsan uu ahaa qof walba maanta waa maalintu ducada u baahan yahay waa maalinta uu maanta ducada u baahan yahay insha Allah taala qof walbana markuu geeriyoodo ducadaas camal u baahan yahay walaalayaalow insha Allah taala ha loo duceeyo darafta markaan arkay inuu xanuunsiyo koomba gale aada ooga naxay kadibna asigoo yacko iyo soo hadleena waxaan arkay ajakis oo koombada wuxuu u galay koombada dadka waxay sheegayaan been waay koombada wuxuu u galay ajakis keliyihiisa ayaa fashion noqdeen keliyaha si loo dhaqo oo loo nadiifiyo waxay noqotay marka in la suuxiyo dhib weyn ma jiro xanuun weynna meesha ma jiro insha Allah taala ha noo soo duceeyo uu dhahay shalayto maantana waa kana waxa la leeyahay wuu dhintay insha Allah taala maanta dhulkaas uu ku jiraa
marka waxaa idin leh walaalayaal u soo duceeya ninkay tiisa gashaa meel uu dhaafay ma jirto walaalayaal qaatumada Allah noo suubay ilaahay maxaan ku dhahay si wanaagsan oo maxaan ku dhahay anagoo qaatumo fiican sameynay anagoo wax wanaagsan sameynay Allah subhanahu wa ta'ala Allah nagu dil bili aadam baanahna dambigeena uu iska baday ilaahay gafkeena iyo maxaan ku dhahay geerideena ma kulmiyo insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaa gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo qofka wanaagsan horta sidaas loo jecel yahay ajagas qof la jecel yahay qof wanaagsan uu ahaa qof dadkiisa jecel buu ahaa dad ilmihiisa jecel buu ahaa dadkiisa ka qoslisiyo ahaa nin dadka u danaynayo dadka inuu ka qoslisiyo soonka dhan anagu naga qoslisiin jiray asigaan daawanayna insha Allah ta'ala maanta laakiin ilaaha naga jeclaad ilaaha naga qaatay insha Allah ta'ala walaalahayga qaaliga nin walba oo maxaan ku dhahay fiidiyogan daawadaha u soo duceeya ajagas haloo soo duceeya ajagas asaga haloo soo duceeya duco ayuu maanta nooga baahay insha Allah ta'ala ducada waa xageena ducada waa xageena walaalahayga qaaliga insha Allah ta'ala ducada waa xageena geeri naxdin badan oo xanuun badan waaye geeri xanuun badan waaye insha Allah ta'ala oo laga naxo oo xanuun waaye ilaahay waxaan uga baryayaa insha Allah ta'ala inuu qabriga u waasiciyo inuu ilaahay qabriga u waasiciyo ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryayaa ilaahay kitaabkiisa gacanta midig ha ka siiyo ilaahay kitaabkiisa gacanta midig ha ka siiyo insha Allah ta'ala gacanta midig Allah ka siiyo kitaabkiisa marti la jecel yahan Allah ka dhigo marti la jecel yahay oo la soo dhaweeyana Allah ka dhiga ayaan leh insha Allah ta'ala asoo hadda waxaan daawaday maxaan ku dhahay oo dhahay maxaan ku dhahay video on TikTok ku arkay maanta ayuu ajagistiisa runteed u imaaday insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa qabriga inuu ilaahay u waasiciyo oo la dhahay tiirunteed asiga maanta ilaahay maanta u imaaday insha Allah ta'ala tiirunteed ilaahay maanta ayuu qaatay ilaahay maanta ayuu oofsaday ducada waa xageena aan u wada duceyna insha Allah ta'ala ilaahay qabriga ha u waasiciyo waa la socdaa wallahi bilaa waa la socdaa xaga waa loo socdaa maxaa naga horeey wixii naga horeey war kama hayn waxa loo cabsanay waxa waaye horta waa la dhiman nafta waxay ka cabsanaysaa wixii ka horeeyo godka madowga ee kugu qabsan doon baa laga cabsanayaa qaatimada Allah noo hagaajiyo qaatimada Allah noo jahaajalay subhanahu wa ta'ala walaalahayga khayr badan ayaan rajeynaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh